السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال iyo marweyn meel walba oo daafaca caalamka naga jaan qaadaysaan halkani waa SRTV waxaanahay Maxamed Axmed Cumar ku soo dhawaada wararkii qodobada aan idinku haynana waxa kamida waxa maanta ka dhacay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga dood cilmiyeed loogu magac daray isbedelka dalka iyo horumarka deegaanka oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahanka deegaanka waxgaradka hogaaminta xukuumadda iyo ururada siyaasadda deegaanka dhismaha hospitalka gobolka Nogobo oo laga fulinayo degmada Garbo ay ku baxayso in ka badan 50 milyan oo bir ayaa waxa uu dhismihiisu maraya meel wanaagsan magaalada Qabridaharna waxa lagu qabtay maalinta ololaha dhiig shubida qodobadaas iyo kuwa kale ayaan wararka idinku haynaa markale kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan waxa maanta ka dhacay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga dood cilmiyeed loogu magac daray isbedelka dalka iyo horumarka deegaanka oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahanka deegaanka waxgaradka hogaaminta xukuumadda iyo ururada siyaasadda ee deegaanka hadaba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay furitaankii dood cilmiyeedkaasi ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalidu ay dadaal xoogan ugu jirto soo dhicinta xuquuqaha kaga maqan shacabka deegaanka dhanka federaalka dhinaca heer qaran waxaan u baahanahay marka ugu horeysa equal representation inaan golayaasha siyaasadeed la abuuray ama xisbi ha noqdaan ama baarlamaan ha noqdaan kaalin u qaadanta Soomaalida inay helaan taas waan bilownay toddobaadkan waraaqan qorayna ku saabsan in baarlamaanka Soomaalida ee hadda 23ka la gaarsiiyo ilaa 50 in la gaarsiiyo maadaama formulaha lagu shaqeynayo uu ahaa 100,000 oo qof ayaa hal MP yeelanaya heer federaal hadii tirada dadka Soomaalida ay 6 milyan tahay inay 60 xildhibaan helaan bay ugu yaraan federaalka hadda laakiin qowmiyadaha aan ka badnayn yaan ka hooseeyay 3 baan leenahay qowmiyada Tigray oo aan ka badnahay 38 bay leedahay wax loojiga ku salaysnaa ma jirin laakiin ma hayno aqoon-yahan iyo dhalinyaro iyo shacab arintaasi xanuun ay ku hayso oo ka hadlay aqoon-yahankeena dhalinyarada wax xanuun ku haya beeshay qaadatay wasaaradda maaliyadda beeshay qaadatay wasaaradda hawlaha guud marka taa in aynu iyadana kor u qaadno damacaynu waa muhiim dhinaca kale in affirmative action loo sameeyo maadaama oo 30 sano u dambeysay dhinaca leyrka dhinaca biyaha dhinaca jidadka u jeeda telecommunication electricity iyo jidadka asphalt roadska waddanka laga dhisay maadaama oo reedka percentage-ka waddanka aan leenahay uu aad u hooseeyo 4% uu maraya meelaha qaarkood markay deegaanada kala marayaan 30 ama 40 maadaama halkaan marayno dhammaan kan oo cadeyntii la keenay House of Federationka intaana sanad walba magdhow ahaan mashaariic ka badan kuwii aanu caadiyan sanadka yeelan lahayn in la siiyo intaana iyadana doodaan ka dhigno oo meesha aan la tagno waxay iman kartaa haddii shacabku ay ajenda ka dhigtaan dawladda kaliya maaha haddii odayaasha ajenda u noqoto haddii aqoon-yahanka u noqoto kaliya maaha marka xaqanaga federaalka aan doonano baa si duuduuba loo yiraahdo xaqa federaalka seen ku doonana la isma weydiiyo marka taa inaan ka hadalo ta kale waxa weeyaan cod u qalma tirada iyo baaxadda dadka Soomaaliyeed meesha aan ku yeelano taas waxaan rajaynaynaa marka hadda xisbiyada la mideeyay laga hadlayo in iman doonto kulli doodo noocan waa la qaban doonaa kulli hadda waa laga hadli doonaa laakiin annaga dan nooma aha afartii xisbiya hadda waddanka maamulaya dan nooma ka inay burburaan oo wax ka isu bedelaan dambe ayaan rabnaa annagu afar xisbi oo kaliya oo meel jooga dan nooma maadaama ay dan noo ahayn waxa wixii lagu bedelayo inuu yimaadaan rabnaa waxa lagu bedelayaa ma wuxuu noqonayaa marka hal xisbi mise wuxuu noqonayaa in la balaariyo iyaga oo sagaal laga dhigo meesha afarta oo lagu soo daro waa wax dood oo hadda iman doono oo haddaba meelo badan maaragtay khilaaf ka taagan yahay laakiin annaga ahaantano mabaadiin oo qoran baa jira oo maalintii dugsiga laga dooday ilaa 7 qodob oo aan ku salaynayno wax walba oo go'aan la qaadanayo inay kuwaas waafaqaan waxa kamida ismaamulka iyo self autonomy iyo federalism Soomaalidu inuu banaanka yahay oo cidna aynan ka hor imanin waxa kamida luqadda Soomaaligu inay noqoto wax ku shaqeynayo xisbigaasi heer federaal si representation kanaga aan awood ugu leenahay gudaha uu sii xoogeysto luqadda Soomaaligu in federal language working laga dhigo waxa kamida xisbiga la sameeynaya ee cusub in maadaama hadda ka hor xoolo dhaqatada aan la siin jirin ahmiyad oo uu oran jiray revolutionary democracy wuxuu salka ku hayaa beeraleyda inuu xisbiga la sameeynaya uu yahay mid si cad u sheegaya in xoolo dhaqatadu ay laf dhabar u tahay waddanka oo tixgelinaya kuna saleynaya barnaamijyada siyaasadeed waxa iyagu baahidooda ay rabaan taana inuu ku daro
rural electrification oo ka mid ah inta badan beeraleydan baa loo qabtay maadaama xisbiga beeraley ka duulay laakiin hadda dadka reer guraaga banking ka mid ah insurance ka mid ah xoolo dhaqatada collateral xoolahoodu ma keeni karaan laakiin beeraleydu dhulkooda u keeni karaan so access to capital ma laha inay xoolo dhaqatadu boqol halaad buu leeyahay laakiin hadduu ilma ka xansado bangi kama heli karo 5,000 oo bir kama heli karo marka waxyaalahaas oo dhan mid bangi ku fikir ku xisaabtamayo oo political program inuu la yimaado weeyaan hadda gacanta lagu hayaa political programkii waxaa kaloo dhiman structure-kii uu yeelanayo xisbigaasi haddii la midoobo waxaa dhiman qaabka uu shaqaynayo working process saddexdaasaa qeexi doona inuu yahay wax ka hor imanaya federalismka iyo inuu ahayn si duuduuba uuna lama odhan karo haddii hal xisbi leeyahayna federalismka laga tegey hadduu hal xisbi uuna ahayna lagama tegi lama odhan karo waddanno federaal sida India oo kale yaa jira oo haddana hal xisbi labaa jira adduunka jira waxaa define garayn doona inuu ka hor imanaya federalismka iyo in kale structure-ka dhismaha heerka dhismaha heer gobol regional level muxuu ahaanaya magac Soomaali wadanaya mise ma wadanayo waa very important xisbigaas astaamihiisu muxuu noqonayaa heer regional soo u shaqeynaya awoodaha go'aanka gaarista waxyaalaha Soomaalida khuseeya kaalintu ku leeyahay cid kale la go'aaminaysa mise go'aaminaya waxaas oo dhan waa in la qeexo qeexitaankaas oo wili aan la diyaarin ka soo bixi doontaa marka halka ay gaadho shacabka soo badhigayna fikir waxaan ka qaadan bay xukuumaddu ku halgami doontaa haddii la yiraahdo wax gaar ah oo qarsoon oo annagu intaan soo saxeexano aan shacabka oran doono waxaas korka laga keenay habeeraatay ma jiri doono yaa idin sheegaya دكتور عبد الواسع عبد الله بدي وهو وزير الدولة وزارة تعليم سرية ساينس كدلك أيادود علميات كان وحى وكسو بندقي عقبدي هوريا ليس بدل كدلك كجرا يولي بها حل كودا أبي يدلكو وحى هورتاغن تشالنجيال عدو بدن وإنه لو باهن ياهي أقوينيان كسوماليد هل كان فرديها دلد هل كان فرديها يدمان ضد كلمة السومالي ده إني سيفي عن درسان dhibaatooyinka dalka hor yaala abiyuma hor yaalin innagana weyn hor yaalin maxaa kamid ah marka dhibaatooyinka ummadda Itoobiya hor taagan oo abi la rabo inuu xal u raadiyo innaguna halka kamid noqono ma hawn abi innaguna inaan halka kamid noqono maxaa kamid ah marka tusaalahan waxaa kamid ah EPRDF gudaheeda waxaa jira power struggle gudaha EPRDF afartii aan naqaanay gudahoogu waxaa ka taagan power struggle cid soo baxaysa waayo bari awoodda gacanta ku dhigaysa waayo su'aashaas inaga maadaama ma saameyn doonto gidigan waxa loo baahan yahay intaynu fadhiisano raano wanihi hoon hadduu soo baxo ururkaasi inaga maxaa dan noogu jirta siyaasaddu waa design opportunity gaan qaadala meesha fadhiyo maanta siyaasaddu deception maaha wax la isku khaldo la isku khiyaamiyo kaliya maaha waa wax inta la fadhiisto la design gareeyo marka power struggle ka taagan EPRDF inaga halkeen ka istaagnaa keeda noogu jirta maxaynu u raacaynaa iska raacitaan ma laabka siyaasadda Itoobiya maanta laabka ma baahna raggan waa rag soo taagnaa naga khibrad badan run marka laga hadlo naga aqoon badan dawladnimadu xumaata ma fiicnaato og meesha u socdaan marka inaga yar istaagno oon dhan halkee baynu ka abaari karna caqabada labaad ee dalka hadda taagan waxay yahay dhibaatooyinka u dhaxeeya qabiilada Itoobiya kala duwan waanaanu eegnaa talaftigeeda maxay isku haystaan daraasadan sameeyno madaxdeenu ma eeginayno inaga laftigeenu intaanu fariisano aqoonyaanka daladu waa inuu yiraahdaa ethnicitationka dalka ka jira saameyntu noogu yeelana saameyn kale atama noloshu waa laga yaabaa inuu advantage-na ku jira garamaayo in la yar eego maxuma saddex expectation ka dhalinyarada Itoobiya macaltan Soomaalidu waxay taagan tahay meel ballaaran the expectation of the youth waxaa noo taagan intaasu milyan oo bilaa shaqo oo sugaya abi dawladdiisa inaga iyo macal dawladdeena Soomaalida ah dhalinyaradu markay soo badato aqoontii soo badato expectation baa dhaca wuxuu gacanka ku yimaada gacanka marka laga sheekaynayo expectation baa jira haddii expectation ka la gaari waayo gaab baa yimaada haddii gaabka sii ballaadhan oo dhibkeeda leedahay lama qaban karo bari marka expectation ka waxa lagu jawaabi karaa kaliya dhalinyarada shaqo la siiyo waxa loo baahan yahay sidii dib loo soo celin lahaa loo dajin lahaa maleeshiyada kala duwan oo kulkeen ku guuleystay by the way is good marka loo eego maleeshiyada dibadda ka timiday qoramada maclam xaarada laftigeeda oo jirtay inagana oo NLF marka loo eego kuwa kale we have done good job laakiin waa wali wada hadalkii ka mid tahay waa walaaladeen si in isriix ma fiicna siyaasadda is negotiation waa loo fariistaa maxaa dan noogu jirta
haddaynu isqabsanno maxaa dhib nooga imanaa that's calculation weyn waxaan dhahnaa cost benefit analysis maxaadan ka warrama haddaan walaalkaa riixdid maxaan ka heli haddii aan soo dhaweeyeysa maxaan ka heli so that's called the cost benefit analysis waa inaynu fadhiisano oon eegno wanaaggaan ka helayno wadahadalka iyo xumaanta ka iman doonta haddaanaa wada hadlin waxaa soo socda electionkii shuruuca sii jiray ay dowladdii hore samaysay electoral reform baa loo baahan yahay marka sidee loo bedeli marka waa su-aalaha dalka ugu weyn haddii uu rabo soomaaliya bari inuu samaysmo ama federal ama meel kasba noqoto waxaa loo baahan yahay inuu ka warhayo electoral reformiga laga sheekeynaya muxuu yahay maxayse loo bedeli haddii la bedelo innaga saamaynta nagu yeelanaya waa maxay qayb libax inaan ka qaadano ma aha inaanu rijinka on ka sheekeyno federal levelka kor markaan u kacno election reformigan muxuu yahay waxaa iska jirta in public trustigii kalsoonida shacab ku qabin dowladda laftigeedu calaamad su-aal saaran tahay dalka dhan aaway sanadii badh bay gaadhay maxaa socda shacabkan etoobiya waqtiga la joogana sanad kasba jaamacadda waxaa ka soo baxa 150,000 oo BA degree haysta 150,000 adisaba badigood dhalinyarada taagan waa wax bartay marka waxay isleeyihiin waxaa leeyahay imika waxoogaa trusty ku qabin dowladda waa soo yaraanaysaa taa lafteeda marka in kor loo qaadaa loo baahan yahay dood cilmiyeedkan oo la isku weydaarsaday su'aalo kala duwan haatan aan eegno qaar ka mid ah su'aalihii ay soo jeediyeen ka soo qaybgalayaashii dood cilmiyeedkan iyo waliba jawaabihii ay ka bixiyeen aqoon-yahanka iyo mas'uuliyiinta dawladdu waxaa jirta book la yiraahdo The Out of Mogadishu A Mirror of Somali Civil War in 1991 waxa qoray Yusuf Maxamed Xayd waxa ku jirtay odaah ah haddii dagaal beeleedyadii hore ay ka dhici jireen ila biyeedyo iyo waliba ceel hadda kuwa imka dhaca waxay ka dhacaan in la kala xigtaysto ilaha dhaqaale ee ummaddu ay leedahay marka su'aashaydu waxay tahay anaa ku saleynaya hadalkii madaxweynaha ee ahaa waxaan dhisnay dawlad ay qabiil walbaba iska dhaxarkaan marka su'aashaydu waxay tahay bal sidee baa dalkan deegaankeena looga hirgelin karaa dawlad ka madax bannaan qabiil oo u taagan ummadda Soomaaliyeed walow dhowr iyo 20 wasiir ay hal qabiil noqdaan laakiin ummadda si fiican ugu adeegan wuxuu yiri xukuumaddu hadda magacaabidii ama xukuumadda nimanka la aasaasay qabiil kasta yaan isku daynay inay meesha ay ka muuqdaan dawlad qabaayil ka baxsan sidee loo aasaasi karaa buu yiri waa arrin muhiim ah waa su'aal aad qaali ah innaga Soomaali markaanu nahay waxaanu nahay hal qol annagii baa sarrifayno waxay noqotay sidii basasho kale basasha marka la dhilayo midba markaad ka sii dhishid dhammaan meesha ilaa aad gudaha gaadhaysid marka waxaanu dhanahay Soomaali baan nahay ka bacdi qabiilkiina reer baan hoos u dhaxgalaynaa taas inaanu ka baxno ayay u baahan tahay waa innaga siiba aqoonyahanka waxaan ka hadlayaa gender equality gaan ka hadlayaa insha Allah marka dumarka badbaadinta dalkeena maal muruq iyo maskax bay way ku bixiyeen laakiin kama muuqdaan xagga siyaasadda wax soo wadanka iyo in its resources ragga iyo dumarkana isku fursad ma aha marka waxaan rabaa inaan weydiiyo saan u gaari kana sinaan iyo xaq arrinta ah dumarka waa muhiim taas taladaas sidina u qaadano dumarka oo ay qurxinayaan oo aqal badan baa ku jiray aynu tashi ka qayb galno sida laga wada qabo deegaano badan oo gobolka Liibaan gobolka Faafan iyo meelo badan buu ogtiin xaaladda ay ku jiraan iyo barakac ay ku jiraan haba yaraatay wax gargaaro ilaa imka loo yeeshay lama jiro dadkaasna waa dadkeena bal wata siyaasad iyo waxa badbaadinta noloshooda xageen ku oognaay barakacayaashii maxaa laga qabtay waa la isweydiiyo anagu waxaanu soo qornaa reporta 290 ku maan celinay inta kalena waa wadnaa lacag fara badan oo ma hayno maxaa laga qabtay waxa ka horeeya maxaa loo hayaa guryo fara badan baa laga wadaa Goljan iyo dhulwaaliya dhul badan baa laga dhisayaa oo la wadaa laakiin iskeelka dhibaatada hawshaas lahayd wax u dhigmo ma xabiiska DBB nala jooga waxay qabteen oo sheegi karaan marka dhibaato 3 sanood iyo ka badan ama 4 sano socotay maamulkii Oromiya anaga nala midka ahaa si fiican ugu maariyay muuna duunay si uu dhisnaa kan Soomaali uu damay annaga dhibaatada dhaxalay oo 6 bilood hadda aan joognay maxaa laga qabtay waa la isweydiin karaa laakiin waa in iyadana lagu xisaabtan waaqac jira meelaha qaarkoodna waxaan odhan karnaa dadka iyagu laftigooda dhibaatada taladeeda lahaa
haddana haddii anigu na weydiiyaan maxaa laga qabtay wixii idinku aad beyseen baan saxaynaa hadda oon masaxayna waan leh wixii idinku aad beyseen baan hadda anigu dib u hagaajinaynaa yaan odhan karnaa barnaamij ku saabsan qaybta koobaad ee dood cilmiyeedkan ayaa waxaa daawan doontaan marka uu ka baxo warkeenani haatanna magaalada qabridahar waxaa magaalada qabridahar lagu qabtay ololaha maalinta dhiig shubidda dalkan Itoobiya wariyaheena Cabdikhadar Ismaaciil ayaa qabridahare warbixintan inooga soo diray ku badbaadi naf u baahan dhiigaaga oo halku dhag looga dhigay ayaa waxaa 15 bisha qiimtii si guud dalka uga dhacay oo la dhiig shubis isla markaasna la dhigayo bangiga lagu kaydiyo dhiiga si loogu badbaadiyo naf u baahan waxaan hospitaalka guud ee qabridahar ka qabsoomay isla barnaamijkan dhiig shubista waxaana ololahaasi fulinayay koox ka socota xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan waaxda bangiga kaydka dhiiga waxaana sidoo kale ka soo qayb galay isla markaasna ka qayb qaadanayay maamulka magaalada qabridahar oo kamid ahaayeen duqa maamulka magaalada qabridahar injineer Cabdirasaaq Caawil ku-xigeenka duqa maamulka magaalada qabridahar mudane Baashe محمود أحمد ماريها جودة هوسبيتال كقبردار دكتور محمود محمد شقالة هوسبيتال كأوديك شوبيس يوليبا كشوبيس با دنك فرسمة جعان وين كجستي إسلام مركزنا كشوبي دت كديج يجو ugu deeqa bangiga lagu kaydiyo dhiiga injineer Cabdirasaaq Caawil duqa maamulka magaalada qabridahar ayaan ugu horeyn wax ka weydiinay ahmiyadda weyn ee uu leeyahay bulshada barnaamijka dhiig shubistu wax adigiina aan wax ku yeelaynin walaalkaana badbaadinaya naftiisii hadee wax loo dhiga ma laha runtii waxa weeye hadda waxaa jira anigu dadka dhiigga aadka u shubaanahay aslan maba garanaya tirada inta jeeran shuba anu ma garanayo inkastoo shubitaankaygu uusan sidan oo kale ololaha badana ahayn uu yahay qof taagan oo hawl ku taagan tahay badana dhiiggan shubi jiray ay ahayd iyadoo noocan oo ololo ah oo si guud loo shubahayo waa markii iigu horreysay shuba wey laakiin tirada kale aan shubay anigu ma garan karaba hadda waxa weeyaan qabridahar oo kale hadda waxa weeye dee xaruntiina aad bay uga soo fog tahay waana magaalo kilalka marka la fiiriyo bartankiisii aad bay muhiim u ahaan lahayd haddii muxuu ahaa bangi dhiig laga aasaaso sababtoo qofka loo waayo wax wardheer jooga waa la soo gaarsiin karay ka xagga kale joogana waa la soo gaarsiin karay mudane Baashe Maxamuud ku-xigeenka duqa maamulka magaalada qabridahar ayaa isaguna ka hadlay faa'iidada uu dhiig shubistu leeyahay dhiigga la kaydiyo faa'iido badan buu leeyahay sababtoo qofka waxaa jirta xaalad degdeg ah maray ku iman karto xaaladda degdega waxaa sababi karta mid caafimaad buu noqon kartaa ama qofku shil u galay buu noqon karaa marka hadduu markaas dhiiggu goobtaa uu ku sugan yahay waxaa fududaanaysa badbaadinta qofka laakiinse marka uusan meeshaas wax dhiiga oolin waxay noqonaysaa in shakhsiyaad la raadiyo shakhsiyaadka waxaa laga yaabaa xilli aan laba heli karin inay ku dhaco marka qofkii inuu xilligii habboonayd ee dhiigga u baahnaa inay waxaa dhici karta ay suurtagal noqon weydaba in la haleelo dr maxamuud maxamed soofi maarayaha guud ee hospitaalka qabridahar ayaa isaguna ka hadlay isla markaasna sheegay ahmiyadda ballaaran ee uu leeyahay badbaadada nafta bini'aadanka dad badan baa noo yimaaday oo dad badan baa ka qayb qaatay dadka qayb qaatayna aad u mahadsan yihiin dhiigana waa dhiig aynan innaga hadda markii dadkan shubaan ay blood bankigu hadda uu iskriin gareeyo ee waxyaabihii loo baahnaa oo dhan uu ka saaray kadib waa dhiig innaga inoo hadhay dhiigga markuu inoo hadhayo dhiigguna wuxuu expire datekiisu uu leeyahay ilaa iyo 35 cisho weeyaan 35 cisho gudahood waxaan isku daynaa bukaanadii hore ee dhiig la'aanta loo refer garin jiray 35 cisho gudahood inaan bukaan loo refer garin Uba Xuseen waxay ka mid tahay kooxda ka socota xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan waaxda bangiga kaydka dhiigga waxayna ka hadlaysaa ahmiyadda ballaaran ee uu bulshada u leeyahay kaloo shubay faa'iidada ay leedahay waa ruux emergency case ku jira oo dhiig bax ah oo ka gaadhin inta dhiig loo diyaarinayo aan ka gaadhin intii family loo deedeeyo ayaa lagu sii badbaadinayaa talabaad ruuxa shubaya faa'iido ugu jirta isagana kow caafimaadkiisa ogaanaya oo la soconaya labo isagii kulliba seel wax la dhaha jira kulli dadka caafimaadka garanaya seel wax unugyo yaa jira unugyadu waa 120 habeen marba dhintaan 120 habeen dhexdeeda yad ku aadinaysaa mar leeyba hadduu salkaaga unugaaga dhimanayo oo uu discard noqonayo adoo ka faa'iideysta oo dadkaaga bulshada ugu deeqo dhalinyarada ololahan dhiig shubista ka qayb qaadanaysa ayaa tilmaamay inay sii xoojin doonaan isla markaasna ay si tabarucaad mar walba u joogtayn doonaan barnaamijka dhiig shubista Cabdikhadar Ismaaciil SRTV magaalada Qabridahar ee xarunta gobolka Quraxay dhismaha isbitaalka gobolka Nagoob oo laga fulinayo degmada Garbo oo ay ku baxaysay in ka badan 50 milyan oo bir ayaa waxa uu dhismihiisu maraya meel wanaagsan sidoo warbixintan inoogu soo diray wariyaheena Bashiir Maxamuud Nuur
waxaa meel fiican maraya dhismaha hosbitaalka gobolka Nogob oo dhismihiisu ka socdo degmada Garbo waxaana ku baxaysa lacag dhan 50 milyan oo bir waqti xaadirkana si habsami ayaa u socda dhismaha hosbitaalkani. Daawud Shambal waa injineerka fulinaya dhismaha hosbitaalkani waxaana ka wareysanay muddada uu socdo halka uu marayo iyo tirada shaqo abuurka ka heshay. waxaanu bilownay bishii Meeyaasiya 6 bilood ka hor waqti xaadirkana waxa uu maraya 60-70% waxaana ku baxaysa lacag dhan 50 milyan oo bir waxaana ka shaqeysa ilaa 50 qof oo shaqo abuur ka helay ilaa haddana ma uusan gelin wax gaaba. maamulka iyo shacabka degmada Garbana wayna caawiyaan markastana wayna garab taagan yihiin. hosbitaalkana waa adeegi doonaa guud ahaan bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Nogob ayaa waxaa soo dhaweeyay dhismihiisa shacabka ku dhaqan degmada Garbe gobolka Nogob. gobolka Nogob guud ahaan faa'iido weyn oo ballaaran buu leeyahay. waxa kale oo faa'iido u leeyahay gobolada kale ee nagu hareeraysan oo run ahaantii dhibaato weyn ay ka haysay xagga caafimaadka ay ka haysay. waxaa maanta dadku hamigiiba ku soo noqdaan oran karaan degmada Garbo iyo agagaarkeedaba nolosha ku soo noqdaan oran karaan. waxa ka bedelayaa kumayayaalka deegaanka ah ee ku hareeraysan Garbo iyo wax allaale wixii kale ee uu adeeg gaarsiin karo ayuu ka bedelayaa nolosha ciriiri yahay uu ku jiray degmada iyo deegaanka uu ku jiray gobolka Nogob iyo gobolada nagu hareeraysanba. waxaanu leenahay waa faa'iido u soo kordhay, waa faa'iido weyn, waa faa'iido ballaaran. talkan waxyaabuhu soo kordhiyay waxa kamid ah in ay maad garanaysaa isku xirmaan gobolka iyo degmooyinkiisu si toos ah isugu xirmaan. xarunta maad garanaysaa gobolka Nogob hosbitaalkan laga fuliyay degmada Garbo anu waxaan leeyahay aragtideeda wuxuu leeyahay faa'iido badan. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka degmada Garbo Mudane Bashiir Cabdiqaadir Maxamed ayaa warbixin faahfaahsan naga siiyay hosbitaalkani. 6 bilood ka hor ayaa la bilaabay muddada 6 bilood socdo waxa uu socdaa si habsami leh ayuu socdaa marka si aad qurux badan maaragtay u socdaa. sidoo kale maxaa la miisaaniyad waxa ku baxday miisaaniyad fara badan ku baxaysa. miisaaniyadaas waxay gaaraysaa ilaa 50 milyan lacag 50 milyan meelaha sabab ku baxaya. dad waxa ka faa'iideystay dad aad kala badan baa ka faa'iideysta oo maaragtay caalamsan 9 kor meelaha gaaraya. muddada uu dhamaan doono waxa maaragtay inuu dhamaado sanadkan gudihiisa haddii la yiraahdo uu dhamaanaya meel aad fiican maraya. marka wax gaaba marna muna gelin intii uu socday muddada 6 bilood socday wax gaaba marna muna gelin oo si maaragtay aad qurux badan ayuu socday. Bashiir Maxamuud telefishinka caalamiga SRTV degmada Garbe gobolka Nogob. وهاجا قولي هالكاد نقدر هنيساننا وSRTV وحمل وناكسن مريا قرية وضريد لجوضو مجالدا جذي وريهنا عبد الرحمن الكعسي أي وربحنتن مجالدا جذي إنه قصدري waxaa heer gabagaba maraya dhismayaasha guryaha wadareedada ka socda duleedka magaalada Guday kuwaas oo qayb ka ah mashaariicaha horumarineed ee laga fulinayo gudaha magaalada Guday. guryahan oo loogu talagalay in lagu faa'iideeyo bulshada ayay ku baxday lacag gaaraysa 48 milyan oo bir. hayeeshee iminka waxa ay guryahani marayaan heer gabagaba ah sida ay noo sheegeen injineerada gacanta dhismayaashani ku haya. waxaan ahay ninka dhismayaashan foormanka ka shaqadana oo shirkadda dhisaysana waa Sky Construction Company wala dhaha kullu hadda waxaa maranaad heer gabagaba ah oo guryaha wasiino 90% waa dhameystiran yihiin. dad fara badan baan ka shaqeeyo oo Soomaaliya ka faa'iideyso xirfado kala gedisan ka shaqeysta oo ninba xirfad buu leeyahay nin xoog iyo nin xirfad labaynta dadku shaqadu kulli kala gedisan yihiin oo dadku xirfadaha ay ku shaqeystaan mar way kulmaan way isugu yimaadaan marna qayb yaa timaada marka barkood ilaa 30 ruux baa timaado ka faa'iideysato mar 20 ruux baa timaado mar 10 ruux baa timaado marka loo baahido maanta ba shaqada la hayo inta ruux u baahan tahay baa gaar laakiin dad fara badan baa ka faa'iideysto dad badan baa ka faa'iideeyay meesha ka shaqeysan shaqooyinku dad waxay ka shaqeeyaan balasarinka ay ka shaqeeyaan dad missionary ay sameeyaan dad gypsum ay sameeyaan dad jiingada ay sameeyaan dad waxay sameeyaan jubarkan oo safiitada ama loo yaqaanay dadna ay sameeyaan
marka dadna waa xoog maal dad kale fara badan waxaa jira bulkeeti ku sameeya banaankaas iyaguna xirfad gaar ah wato iyaguna sameeya iska jiro dad baabuurta ka shaqeystaan ku soo guraan dhagax iyo xaanad iyo waxaas ay keenan marka dad badan baa ka faa'iiday meesha oo magaalo markii loo diibo waxa 6 baloog weeyaan baloogiiba de markii 20 ruux ama 30 ruux maalinta ka shaqeysay markii la soo geeyo dad fara badan ilaa 100 ku dhibaa 100 iyo waxyaabaha maalintii ka faa'iiday ilaa 5 bilood bay socotaa 5 bilood bishanaad baan ku jiraa wallaahi heer wanaagsan bay marayaan oo gabagaba ah waa in badan baa si fiican baa looga soo shaqeeyay heer gabagaba ay hadda marayaan mashruucan guryahan lagu dhisayo ayaa dhanka kale waxaa fursado shaqo ka helay shaqaale ku xoogsada xirfado kala duwan kuwaas oo ah bulshada deegaanka adaga waxaan ka shaqeeyaa halkan oo mataqaanay ka israaqadooda mataqaanay halkan oo maadanahay maadaama nahay hadda waxaan ka koobanahay qaar waa fuundi qaar mataqaanay waxay noo sameeyaan bulkeetiga qaar waxay jiraan mataqaanay bulkeetiga qaar waa faryaamo oo mataqaanay geedaha iyo waxay xidhaan iyo alwaaxyada waxba xidhaan alxamdulilah rabbil caalamiin meesha si wacan baan wallahi billahi aan mataqaanay ugu fiicannahay shaqaale waan badannahay 20 iyo aan ka koobanahay inta aan joogno inta blogga anaga inta halka howlgelin magaalada waxay iska baamoodo mar bishii waxa laga maalin 3 maalin ka shaqeyso hadda alxamdulilah rabbil caalamiin maalin daawan shaqeynaa 4 hadda guriyaha 4 hadda bishaan baa 5 inta la wado 5 ilaa xilliga waan taaganahay waan shaqeynaa ma sha Allah marka أول كورن دو حنسكين ده الحمد لله رب العالمين مالنا ولا شقين لا مال ولا شغلان أبو بيشو حلايا وأنا شمع كشخص ما أفهم كشخص وياه هذا الحمد لله رب العالمين بيشو أكون شمبا أنا حل مالنا سلم بان شقين أنا كنت هاي نهاية لكن شغال وصفة عن بقى ساعتها عن أوجه اللي شعب كماشي تجينا وانا بردينا وانكاح وانا كشقيتها مركا آدي بان دولة ومحسنت هاي شعب كذا ما نكمل هاي عماك شقينا ماشي aad baan u arkaa ku faraxsanahay aad baan mataqaanaa isu dhaweynaya dawladda nagu siisa shaqada noo iska shaqalaan oo iska fadhino oo shaqo aan haynin ayay shaqadeena siiyaa ilaahay mahad kale aad bay dawladda u mahadsantahay dawaardi baan ka helay shaqa haddana dhexdeedii ayadii baan ka shaqaysanaa aad baan ugu faraxsanahay guryahan ayaa ah kuwa qayb ka ah mashaariicaha horumarineed ee ka socda magaalada Goday waxaana la filayaa in dhawaan la soo gabagabeeyo cabdiraxmaan maxamed muuse cabdiraxmaan ilkaase SRTV magaalada Goday وهاجا قولي أخيرا هالكان نقدر هنيساننا SRTV وركينا وصو سعد وحكم إذا مسؤولين وهجابين يقدموا كحجان كقبل كليبان وسوكر مري دول بلاد لجهير جلية الدجمة فلتو يولي بحبنت عيارها بس مركهرة مدحونها ودن كأمريكان كأيار شيء إلا الدليل هجاميه كوحدة ISIS أبو بكر البغدادي سدور بحنتن إنه وجوش شيء يوريه إن محمد إبراهيم روشكا waxaa ahayd subax ka duwan subaxihii soo maray madaxweynaha waddankaasi maraykanka Donald Trump kadib markii madaxweyne Trump uu ku labisan koodh buluug madow ku jira iyo shaarcad uu soo galay howlka weyn ee saxaafadda uu kula hadlo ee ku yaala aqalka cad ee waddankaasi maraykanka halkaasoo madaxweyne Trump uu kaga dhawaaqay in ciidamada gaarka ee Rangers ee waddankaasi maraykanka oo ay weerinayaan diyaaradaha qumaatiga oo kacay helikabtariska in al-Baghdadi iyo qaar ka mid ah saraakiisha sare ururkaasi uu lahaa in halkaasi ay ku dileen waxaana Mr. Trump uu kula hadlayay suxufiyiinta howlka shirarka aqalka cad ee waddankaasi maraykanka uu intaasi uu ku daray in sidoo kaleeta dhimashada hogaamiyahani ay ku jireen 3 caruur ah oo uu sheegay in howlgalkaasi ay ku dhinteen Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority. Abu Bakr al-Baghdadi waa uu dhintay waxa uu ahaa aasaasigii iyo hogaamiyihii ururka argagixisada ah ee caalamka dowladda maraykanku waxa ay raadinaysay Baghdadi muddo aad u dheer inay ku hesho nolol amaba geeri waxaana taasi waxaa ugu weynay amniga qaranka ee maamulkaygu uu ahmiyadda u siinayay Abu Bakr al-Baghdadi waa uu dhintay kadib markii ciidamada gaarka ee waddankaasi maraykanka ay habeenkii xalitaha u bareereen howlruntii halis weyn iyo khatar lahayd taana waa lagu guulaystay inkastoo khudbadda madaxweyne Trump ay ahayd mid aad u dheer isla markaana meelo badan taabanaysay ayaa haddana waxaa khudbaddaasi laga dhadhansanayay sida uu ugu qanacsan yahay tallaabada ay qaadeen ciidamada gaarka ee waddankaasi maraykanka uu leeyahay ee Rangersku weerarkeen
oo ay fuliyeen sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi maraykanka ee the Pentagon 70 askari oo ka mid ah ciidamada jihaaska ee waddankaasi maraykanka uu leeyahay iyo 8 ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopteriska ay ahaayeen kuwa gabi ahaanba ku guulaystay sida warbixinta lagu sheegay bartilmaameedkii ay lahaayeen mar wax laga weydiiyey madaxweynaha waddankaasi maraykanka inuu jiro khasaare ka soo gaadhay weerarka ciidamada gaarka ee dalkaasi maraykanku ay ku qaadeen hogaamiyihii ururka ISIS ayaa madaxweyne Trump waxa uu caddeeyey inaanu jirin wax askar ah oo kaga dhimatay howlgalkaasi isagoo dhinaca kale si weyn u ammaanay ciidamada sida raha u booda ee rangerska ee waddankaasi maraykanka uu leeyahay waxaa Mr. Trump sidoo kale uu ammaan weyn u jeediyey General Mike Milley oo isagu ahaa ninkii horkacay ciidamada gaarka ee waddankaasi maraykanka iyagoo howlgalkaasi ka fuliyey waqooyiga waddanka Syria guusha uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaasi maraykanka iyo dilka hogaamiyihii ururka ISIS Abu Bakr al-Baghdadi ayaa imanaysa xilli madaxweyne Trump uu dhawaan dhaleecayn aad u kala kulmay labada aqal ee waddankaasi maraykanka uu leeyahay kadib markii madaxweyne Trump uu si lama filaan ugu dhawaaqay inuu qaadayo ciidamadii militaarka waddanka maraykanka ka joogay waqooyiga waddanka Syria arrintaas oo Trump ay si weyn ugu cambaareeyeen siyaasiyiinta dalkaasi maraykanka uu leeyahay dhinaca kale war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi ruushka ayaa goor dhaweyto waxaa lagu sheegay inaanay jirin wax howlgal ah oo ciidamada gaarka ee waddankaasi maraykanku ay ka fuliyeen habeenkii xalayta ahaa waqooyiga galbeed ee dalkaasi Syria sidaana waxaa laga soo xigtay afeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee waddankaasi ruushka geerida Abu Bakr al-Baghdadi oo isagu ahaa hogaamiyaha ururka ISIS ayaa la ogeyn inay soo afjari doonto dagaalkii kooxdaasi ay kula jirtay dalalka reer galbeedka iyo in kale mas-uuliyiin uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Liibaan ayaa soo kormeeray dhul beereed laga hirgeliyay degmada Filto warbixin umuurtan ku saabsan wariyahana Maxamed Deeq Qamaan ayaa inoo soo diray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Liibaan iyo kuwa degmada Filto ayaa soo kormeeray beerta tuulada masaajidka oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Filto isla marhaantaana u jirta degmada Filto 15 kilomitir jeedada boqoshada mas'uuliyiintan ayaa ahayd sidii ay u kurgelin lahaayeen wax soo saarka beeraha maadaama lagu jiro xilli roobaadka isla marhaantaana bulshada u wacyigelin lahaayeen wax soo saarka tabaca beeraha waxaana uu horeyntii si wajir u wareysanay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Liibaan mudane Daakir Aadan Xuseen iyo madaxa arrimaha xisbiga gobolka Liibaan mudane Khaliif Macalin Cadow hadaladoodina waxaa ka mid ah sida tan aniga iyo goobtii heer gobol ah iyo heer degmo waxaan soo booqanay maanta beer ka mid ah beeraha ku yaala qabalaha masaajid beertan oo xaqiiqdii tusaale u ah qof kasta oo raba inuu wax ka tabacdo dhulkeena iyo macnaha faa'iidada laga helayo beertan waxaa ku beeran mooskii cambadii babaygii zaytuunkii cambashoogii dhammaan intii khudaar la sheegayo dhan way ku beeran tahay waxaa beertay hal shakhsi oo muwaadin ah oo dadaal fiican oo balaadhan ka muujiyey wuxuuna tusaale u noqonayaa qof kasta oo muwaadin ah oo raba inuu wax soo saarto inuu dhulkeenu yahay dhul dihin wax soo saar fiicanna laga heli karo wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo xagga dowladda sidoo kale dadkuna waxay u baahan yihiin inay kudayasho ka qaataan isaga xaggiisa waxaan anagu dowlad ahaan insha allahu tacaala ballan qaadanaa inaanu siino taageerada u baahan xagga dowladda waxaa beertan webi laguma waraabiyo waxaa lagu waraabiyaa ceel gacmeed baa lagu waraabiyaa waraabka lagu waraabiyo waa ceel baa inta gacanta lagu waraabiyo dadaalkan marka waxaa waaye qof manta ma gaari karo nin iskale Ibrahim baa la yidhahdaa waa nin shakhsi keligii ah oo beerta gacantiisa ku waraabsado ma laha hataa dibi u falo qalab kale ma laha matoor kale ma laha waxaa lagu waraabiyaa waa ceelka marka waxaan dhihi lahaa qabalaha dadkeeda kale inay ku daydaan sida Ibrahim camal cid kastaba islaan inta asaga Ibrahim maanta uu sanadii la wada sameeyay dhamaanteen waxaan gaaraynaa horumar qabalaha hadda waxaan ku dhiirigelinaynaa in lagu daydo wax soo saarka Ibrahim inta qof kale gacanta u taagay taada inaad gacantaada maashid oo noqotid shakhsi wax soo saar leh si jiilka ka dambeeya iyo kuwa kale ay kugu sii daadaan oo dhaxal u noqoto sidoo kale waxaa isaguna geesiisa wareysanay Ibrahim Maxamed Muumin oo ah mulkiilaha beertan isagoo dowladda ka codsay in la taakuleeyo inta uu isku filnaanayo lana sii jirka beeraha wax soo saarkan ilaa dhowr iyo 10 sano sanaan u shaqaynay markay saan tahay hadda waxaan leeyahay waa wax la isku dayana kara say hadda wax qabadka iyo markii la fiiriyo macnaha dawladana garab ay u siisay hadda tababarada iyo wixii dhan waana la siiyaa marka dadkii oo hadda soo korayo oo wax qabsanaya si hadda sanadyadan hadda sanadkii hadda ugu dhawaayay annaga gacanka si inay wax macnaha si wax loo beeri lahay iyo si ma artay loo siin lahaa hadda beero kale oo basal leh
oo hadda ani naftayya aan tusina way jiraan marka nin kastaba inaad saa wax u qabsada oo maaragtay horumar la gaara oo maaragtay raashiimada iyo waxa aan sugayna aan ka baxna oo annaga isku filnaana macnaha aan loo baahan yahay sida inaan dadka gaarsiiyo wixii aan karaanka iyo garanayana waan rabaa haddii ilaahay yiraahdo horena waan u gaarsiiyo daawadayaal waxaan idin akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xidhiidho intaas waxaa inooga eeg war wixii na soo gaadhay tan iyo kulantadeena dambe ani akhyaarta igala qayb gashay tabinta warkan isku duubnay waxaanu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh